Assalamu alaikum. Daawadayaal soo dhawaada. I wanted inaan sharaxo case-ka ee maanta ACLU-ga buuxisay iyo midka state-ka ay buuxiyeen ee gobolka Minnesota iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo why midkii horeeto loo diiday ayna u badan tahay midka ACLU-ga ay buuxisay in uu guuleysto. Soo dhawaada. I think this is the first time on profile-kayga ka gala live. Soo dhawaada. Saa la socotaanba Soomaalida waxaa lagu soo rogay beegsi aad loo beegsanayo, aad loo eegayo, aad muxuu ahayd diirad gaara ay ugu furan tahay gobolka Minnesota. Diirad gaar ayaa saaran sababtoo ah waa meesha ay Soomaalida uga badan tahay. North America also waa meesha ay Soomaalida ugu awood badan tahay wadanka Mareykanka. Marka waxaan rabay inaan ka hadlo maalmihii la soo dhaafay inta badan arrin ayaan qoraal baan laakiin ku soo jeediyay, kumaana soo jeedinin in aan iraahdo saanay u eg tahay ama saanay tahay. hadal ahaan uma soo jeedinin, qoraal ahaan kaliya u soo jeediyay. qoraalka mar walba waxaan u campaign gareynaya ama aan dardarta u wadaya waxay ahayd in dowladda federaalka ah oo Donald Trump madaxweynaha uu ka yahay oo ICE amarka soo siisay in waxa la yiraahdo TRO, temporary restraining order lagu qabto. Temporary restraining order-ka muxuu yahay? Ina xasuusataan in kala maqaan travel bank markii uu soo baxay waa xasuusataan Donald Trump waaga ay wada barateen oo adinka dhanba social media-da igu barateen. Travel bank waxyaabihii hor istaagay ayaa waxay ahayd allaare TROs, injunctions, waxyaabaha la yiraahdo. waxaana lagu doodaya mar walba oo la isticmaalay dastuurka wadanka, constitutionka wadanka ayaa aad loo isticmaalay. marka gobolka Minnesota attorney generalkiisa Keith Ellison iyo dadka asaga la shaqeeya ayaga ayaa waxay buuxiyeen maxkamadda federaalka ah ee ku taala St. Paul ayaa waxaa laga buuxiyay case-kaas oo waxaa la yiri marka case waa laga soo diiday TRO-gii ama temporary restraining order-ka maxkamadda way diiday. marka inaan sharaxaan rabaa sababta loo diiday iyo midka ay ACLU-ga maanta ay buuxisay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. Keith Ellison waa qareenka sare ee wadanka gobolka u shaqeeya Minnesota, waa the highest law of order asaga ayaa ugu sareeya. macnaheedu taasay ka dhigan tahay gobolka ayuu matalaa. maadaama uu gobolka matalo, gobolku awood ayuu leeyahay. gobolku waa dowlad, gobolku canshuur buu leeyahay, waa dowladda hoose gobolka. taasoo macnaheeda tahay awood ayaa u go-an. marka waxay isticmaaleen waxa la yiraahdo 10 amendment ayay ku tiiriyeen case-kooda markay maxkamadda tagayeen. 10 amendment, let me read it again. taasoo ah gobolka state rights, gobolka xaqa uu leeyahay oo kale. markay gobolkii iyo dowladii sare ama dowladda dhexe ay isla tagaan maxkamadda, judge-ka ama dhexdhexaadiyaha uu maqlaya wuxuu leeyahay marka maxaa la isku haystaa marka ii sheega bal. gobolka marka wuxuu soo jeediyay uu leeyahay waxyaabaha aad wadankanaga keenteen khatar ayay abuureen, waxayna aad u cuskadeen 10 amendment. 10 amendment waxa waaye waa awoodda gobolka. marka waxay noqonaysaa anaa awoodaan le iyo aadi ma lihid, iyo halkaan sharci uma lihid iyo sharci ayaan u leeyahay. That's why uu case-ka state-ka markii ay TRO-ga ama ay dhaheen restraining order operation-kan hala joojiyo ama gadaal ha loo celiyo ama hala xakameeyo ama hala cadeeyo oo meel go-an oo la yaqaan hala geliyo ay yiraahdeen waa laga diiday. sababta looga diidana waa taas, sababtoo ah waxay noqonaysaa anaa meeshaan ka taliya iyo adi kama tali sidii anaa ka taliya la isku qabsado. That's basically what that is. intaas isugu soo biyo shubatay. And I knew that case from the beginning. gadaal u fiiri waxyaabihii aan qoray the past couple of days inuusan meel dheer uusan gaaraynin. marka waxaa ka awood badan 4th and 5th amendment.
kuwa la yiraahdo kuwaasoo waxa la sida due process oo kaleeto in qofka remember markii videoda waa fiirsateen oo kaleeto in qof maxkamad la soo istaajiyo oo kale ama la qabto oo kale waxa la yiraahdaa innocent till proven guilty. That's a due process. qofkaani dambiga waa lagu soo oogay ee laguma cadaynin. That's a due process. in qofka markii wax lagu soo sheego maxkamad la soo istaajiyo maxuu ahayd jury loo qabto la soo istaago oo la yiri uu qofkii uu doodi karo uu oran karo waxaan leego uu isdifaaci karo. That's a due process. And that is waxyaabaha ACLU ee isticmaashay case-kooda maanta markay buuxinayseen. Yes, that's really good. Also waxay isticmaaleen Fourth Amendment, unlawful searches and seizures. And hadda saad aragteen ba social media waa aragteen ICE waxay sameynaysaa qof kasta istaajinaysaa. sharciyan waa inay warranty haystaan. warranty uu judge soo saxiixay waa inay haystaan. warranty waa inuu magacaaga ku qoran yahay, waa in judge soo saxiixay uu ku qoran yahay taariikhda, a lot of different things. marka hadda basically waxa ay sameynayaan ayaa waxay tahay dadkii istaajinayaan, waxay xirxirayaan dadkii citizenka ah, waxay aad u aflagaadeynayaan oo dilayaan siday gabadhii dileen oo kaleeto Renee Nicole Good oo kaleeto dadkii wadanka u dhashay ay dilayaan oo kale. marka case-ka ACLU-da wuxuu uga duwan yahay case-ka state-ka soo bandhigeen. laba ayay shay oo kala duwan ayay cuskadeen. state-ku wuxuu yiri anaa meeshaan ka taliya, state Israel muxuu ahayd authority ayuu isticmaalay. ACLU-ga waxay tiri wiilkii waxay magacaabeen wiilkii yaraa oo yariiska ah markii ICE bilaabanaysa last year adi Christmas I think right before Christmas ka ahayd oo maleena markii wiilka yarka ay qabteen oo 20 jirka wadanka ku dhashay oo xiri jireen wiilkaas ayaa kamid ah dadkay soo magacaabeen. waxay marka that case wuxuu haddii marka laga yeero TRO-ga oo la yiraahdo restraining order oo temporary ayaa laydinku qabanayaa, waxaad sameynaysaan intaa ka cadeynaysaan, aad ka sheegaysaan waxyaabaha aad sameynaysaan inay sharci yihiin in kaleeto waa mid aad u fiican. sababtoo waxay joojinaysaa ama ay hakad gelinaysaa ama ay xakameynaysaa the whole operationka dhan ayay istaajinaysaa. ama muxuu ahayd judge-ku wuxuu leeyahay saani talaabadan qaada waxyaabaha aad sameynaysaan. hadda naagta maanta waxay tiri DHS-ka macayska xukunta waxay tiri dadka citizenka waa inay u diyaar garoobaan inay cadeeyaan inay wadanka u dhasheen oo kaleeto. so which means aniga oo kaleeto hadda waa passportkayga aad kaba soo qaad aniga Soomaali ah waa la ugaarsanooyaa, that's okay, but kaba soo qaad qof muslim oo kaleeto ama qof madow oo kale ama qof kale, basically that's illegal inay saas sameeyaan. waa arrin aad u legal waa sharci darro inay yiraahdaan saas oo kale. sababtoo sharciyan waxaa ku qoran sharciga in ay search warranty ay haystaan, inay traffic istaajiyaan sharci uma laha, inay meeshay rabaan ay garaacaan sharci uma laha. marka case ACLU-ga buuxisatay maantay oo Minnesota ka buuxisay aad ayuu uga awood badan yahay, ugana fiican yahay midka ay state-ka buuxiyeen. state-ku wuxuu yiri anaa meeshaan ka taliya. ACLU-da waxay tiri dadkan xaqoodii ayaad ku xadgudubtay, si khaldan ayaad u baartay, sharciga xaqooda dastuuriga oo constitutional right-ka ayaad ku xadgudubtay. also markii TRO-ga kaleeto la buuxiyo kale TRO-gu waa wax degdeg hadda dhibaa taagan hadda xalli. marka haddaan dhahdo ani meeshaanan ka taliyaa ani ii xirneed muxuu ahayd barakadan ama meeshaan ani ii go'nayd oo kale aad tiraahdo laakiinse wax degdegana aad rabto kayna isma qaadanayso, wax iskala maaha. laakiin haddaad meesha la soo shirtagto hebelaasaan lagu sameeyey, hebelaasaan la yeelay, hebelaasaan la yeelay, hebelaa lagu xadgudbay, halkaana hebel lagu dilay, hebelaa la aflagaadeeyey, waa la xiray, waa la qabtay, intaa la maray. wax degdega waa in la isiiyaa oo restraining order la isiiyaa oo hadda la iga celiyaa is very different. aaday uga duwan tahay markii la yiraahdo anaa meeshaan ka talin jiray iyo hebel ayaa muxuu ahayto lagu xadgudbay xaqa uu wadanka ku leeyahay oo constitutional rights-ka labadaas aad ayay kala duwan yihiin. ana waa sharaxi doonaa more ee ka soo baxaan case-ka maanta ACLU-ga buuxisay wiilkii muxuu ahayto yaraa ayay magacaabay lami lokare wiilka iyo ahaa horta. It was 72 pages ayay ahayd case-ka ACLU-ga buuxsatay maanta
Mubashir Khalif Hussein Mohammed Aydrus iyo Javier on last name kiisa la sheegin Doe. Case number 26-324 waxaana laga buuxiyay Minnesota gobolka ayaa laga buuxiyay ACLU ayaa buuxisay. Ani marka waxyaabaha aan u ololeynaa waxyaabaha badan ka qoray maalmihii la soo dhaafay ayaa waxay ahayd cabsi badan ayaa jirta dadkii dhib weyn ayaa loo geystay haddii marka community-gu uu buuxin lahaa kayska oo annaga intaan is arursano oo aan isu tagno oo aan dacweyno dowladda oo aan maxkamad la tagno wax weyn ayaynu ahaan lahayd sababtoo dadka la ugaarsanayo dadka ilmahoodii haweenkoodii waayeelkoodii dadkoodii darbiyada loo galaayo waa annaga waxay noola kala hartay dowladda ma lahan. Remember, I understand dadka qaarkood way baqayaan cabsida is valid waa wax valid cabsidu waa wax jira but like we are at the waxaan joognaa levelkii ugu sareeyay oo qof la xumeyn karo ama muxuu ahayto la aflagaadeyn karo ama dhibaato loo geysan karo kale. Hadda dadka Minnesota laga qabtay kale couple of people caawiyay oo Minnesota iga soo waxa la sameeyay straight up within couple of hours or less than 24 hours waxa laga tuuroyaa Texas. Minnesota laga qabtay Texas, Houston laga tuuro dadka badankiis. So at the highest level oo dad umad dib loo geysan karo waana loo geystay. So marka dowladda every little thing ay haysato way la soo baxday. Marka annaga marka inaan isticmaalno wadanka sharciga u yaala oo maxkamadaha isticmaalno oo aan niraahno muxuu ahayto waana la ku xadgudbay xaqayagii ayaana la ku xadgudbay annagiyo isku duuban ayaan isla soconaa kabacdina case by case aan codsano TRO-ga as a community. Remember this also federal wide. Marka federal markay yihiin haddii Minnesota laga xiro it will be nationwide because ICE operation keeda dhan ayay hulinaysaa 100% ma joojin doontaa no. sharciga ma maqli doontaa dowladda Donald Trump? Probably no. Laakiin adigu waa isku dayday. You tried. You went there. maxkamadii aad tagtay waa dooday naftaada u istaagtay and waad isdifaacday and that's what matters. It's not about a lot of times I started writing about these things 10 plus years ago. I did not used to get nobody cared, all of that. That doesn't matter. A lot of times work itself is the goal. shaqada laftirkeeda ayaa goolka it's not maxaa ka soo bixi doona sababtoo berrito haddii dowladdan way tagi doontaa but waxay sameynaysaa waxa la yiraahdo precedents waxyaab talaabooyin badan oo horey aan loo qaadin ayay qaadaysaa annagayna nagu muxuu ahayd normal looga dhigaysa it's normalizing a lot of illegal stuff annagayna isticmaalaysaa Soomaali haddaan nahay marka annaga as a community haddaan istaagi lahayn non-profit iyo badan aan leenahay there's a lot of non-profits every other day there's a non-profit sawir ku jiro oo some type of picture laga qaado that's what non-profits is for. Non-profit-ka wuxuu leeyahay ani meesheedu waa ka shaqaysan waayay waa la ii yimid waa la ii hanjabay dadkii aan u adeegi jiray argagax ayaa ku jira kabacdi non-profit-ka wuxuu apply gareyn karaa oo raadin karaa lacagta la yiraahdo defense fund lacaga badan oo difaaca oo non-profit-ka eligible u yihiin ayaa jira oo shakhsiyaadka ama dadka businessyada kale aniga adigoo kale taa aysan eligible u ahayn ama aysan raadsan karin oo kale also is symbolic sababtoo dadkan waa lagu soo duulay way istifaaceen sharciga isticmaaleen sharciga ay barteen. The one thing that bothered me oo aad ii dhibta ayaa waxay tahay every time I say maxkamadda hala aado disada Soomaalida dimuqraadiga Soomaalida culays kuma war hadda dimuqraadiga maxay ku qabanayaan afkan cuntada lagu geliyo ma rabtaa because at this point waa lagu hadlay that is waa lagu dooday sharcigii wadanku yaala wadanka sharci baad ku leedahay dhalashaad ku haysataa xaq baad ku leedahay xaqaaga aad raadso you know Soomaalida waxay dhahdaa af joogay adimo loo aadmina looma adeego trust me I never thought in arki doono the day aan dimuqraadiga difaaci doono but that is wrong bisababtoo in cuntada afka lagu geliyo ma rabtaa sabab qofka waa adiga qofka lagu soo duulay waa tiro badan nahay awoodaan leenahay waxaana la kugu soo duulayna markii hore ayaa waxay tahay dad muuqda ayaa nahay dad muslim ayaa nahay dad madow ayaa nahay nimanka cunsuriyaasha waxyaabo badan ay rabaan inay dabagediyaan annagayna isticmaalooyaan and we are easy target
aad u fudud ayaan ahay marka dimuqraadiyo ama republic it doesn't matter officialska there is so much they can do awoodooda aad ayay xadidantaa sababtoo hadda taa ujeedaan Keith Ellison wuu dadaalay but Keith Ellison Soomaaliga Caramel iyo 24ka ama Cleveland Avenue magaaladanada lagu istaajinaya asaga maaha it's us non-profit-yada lacagta buuxinayo oo dadka caawiyo oo dadka muxuu ahayd daryeelana asaga maaha that's us waa anaga muxuu ahayd mayorka oo kaleeto inuu ku hadlo hadda anaga gobolkanaga oo kale odagaan I never thought the day aan faanka Dwayne noqon doono inay dhici doonto odayga gobolkan governorka oo ah Soomaalida wuu difaacay a lot of times qofka ugu sareeyo oo Republican oo Soomaalida garab istaagay ayuu noqday adinaasi wada kami isma dhehaynin muxuu Dwayne ayaa Soomaalida u hadli doona ama dhihi doona dadkan fraudka and they tried. And a lot of times the people think adhaan kaliya maaha this is politics siyaasadu sideedaba dan ayay leedahay saaxiib ma laha sababtoo ah election ay u socotaa Ohio kursi ayaa loo tartamayaa Sherrod Brown ayaa soo noqon raba ninkii ku-xigeenkiisa ahaan jiray asaga oo gobernatoore ku-xigeenka ahaa oo JD Vance markuu Donald Trump watay kursigiisii la siiyey lama dooranin ninkaas kursiga waa loo magacaabay he needs to run muxuu hasted ayaa la dhahaa maadaama ay tahay ninkaas inuu ordo ninkaasna for a long time muxuu ahayto scandal ayaa ku dul wareegaysay lacag badanaa la xaray scandal aad weyn oo Soomaalida xataa nothing ay noqonayso Ohio ka dhacday couple years back maadaama ay taasi dhacday they own crisis GOP-da Ohio qabtaa marka inay iska sii jeediyaan qiica ku soo furmaayo oo Soomaalida afraad sameysay inta la mar inta la istaagay dhahayaan it's very easy it's not like in asxaan ku sameynayaan oo kale but sometimes a lot of times people will leeyihiin hadii lagu diido you tried you don't have to succeed ina ku guuleysata ma also it's very symbolic dadkii lagu soo duulay maxkamaday tageen maxkamadaha awoodda ay leeyihiin idin sheegaa markii ay muxuu ahayd dawladda Donald Trump ay aqalka hoose rabtaa inay xajisato dawladda Donald Trump Texas waa gobol aad u weyn waxay dhaheen registration sameeynaa kuraasta waa dabagadineynaa dimuqraadiga dhan meeshan ka tuureynaa remember Newsom wuxuu yiri anigana redistricting sameynaya kulligiinba miiska waa idinka wada tuuraya because California is the biggest state waa state-ka ugu weyn waa la isku qabsaday election la aaday dadka California way u codeeyeen haddana saasoo ta GOP-da way ku qabsatay maxkamada la aaday hadda maalshalmeed ma samaantay mar u jeeda there's too much happening telefonkay ma kala istaago anyway muxuu ahayto Newsom guulu gaaray waa loo celiyay because wuu doorasho soo galiyay doorashadii uu soo gashay waxaa lagu yiri redistricting-kaaga waad sameyn kartaa meesha waa la gorgortamooyaa that's the one thing I want my people inay bartaan maxkamadahana lagu gorgortamaa xaqaaga raadso cid kuu doodayso male because the Republicanka ayagaa bilaabeen Texas ay tageen waxay dhaheen redistricting aan sameynaynaa dimuqraadiga meesha ka saareynaa gobolka ugu weynaa oo dimuqraadiga oo California meesha soo goray wuxuu yiri that's saying America that hold my beer but isugu yiri horta bal ii qabtaane and that's election u aaday wuxuu rabay ayuu helay wuu dabagadiyay dan waa lagu qabsaday maxkamada la isla aaday wuu dooday wuu istaagay xaqiisii waa la soo siiyay hadda and I'm so looking forward to meesha taas ka dhici doonto I'm giving that example-kaas dadka waxaan u siiyay to show people haddii aad xaqaagu istaagto oo aad qof danihiisa u kaca aad tahay muxuu ahayto in gadaal lagaaga bixi doono this is a very very defining moment I don't think Mareykanka 20 sano jooga sanadkana 20 anoo high school ka dhigtaa imid muxuu ahayto weligay inaan arkay Mareykanka oo kale and I don't think haddaan noolahay 20 sano soo socoto inay saan dhici doonto this is a very defining moment I hope people see that dadka inay u jeedaan waxa meeshan ka socda Mareykanka waa lagu kala gorgortamooyaa so my people please stand up for your rights Republican or Democrat heblaaya la doorto caliya la doorto no there is so much ay ku qaban karaan adi waxa aan naftaada u qaban kartid oo adi aad sameyn kartid yow hadii ayuutooyinka la aruuriyo
markii laaninka calanadan oo istibrinto meelaha la warwarfinaayo oo heblaayo qabiil hebel calan hebel qabsaday iyo that's a different feeling I have, don't even ask me. Anyway, lacagaha la soo aruuriyo iyo airborradan laga dikrinayo oo muxuu ahayd I don't get it. Waa calanka marka loogu sharaxaa, that's a different story. Let me not get sidetracked. La isugu imaanayo kale lacagaha loo aruuriyo are very easy to find. This is soddonkii sano la soo dhaafay haddaan Soomaalinahay markii laga reebo qaxii iyo isdilkii annaga isku sameynay dhibaatadiina soo gaartay. This is next to that. It is that big. Saasay u weyn tahay, and I hope dadka inay u jeedaan. Trust me, like these days I ride a lot and I'm tired because I see waxa socdaan u jeedaa where it's going, sida loo kala gorgortamaayo, loo kala bixinayo. Marka ayuutooyinka lacagaha barkimaha hoostooda muxuu ahayd dadka la kala aruurinayo waxyaabaha la qabsanayo we can collect muxuu ahayd money and we can defend ourselves, stand up for ourselves. Anaga isdifaaci karno, anaga isu istaagi karno. Kid Alison tried. I'll thank you. Dawaan wuna difaaci, thank you. Heblaayo kale wayna difaacday, thank you. Way mahadsan yihiin. Ba anaga waxa aan qabsan karno qof noo qaban karo ma jiro. And that's the one thing I want to say. I also got a live car. I don't think it profile in a live car. So thank you. A lot of you were imaten for lending me your attention. So for the past couple of days, that's the one thing I rabina sharha. وحيابه كوكل دوينه. لبدا case Keith Allison وبوحي which is محور تتين amendment أيو استعماله مع تاسو ودقبل كا mid the ACLU كبوحسي مانتنا 4th and 5th amendment أي استعمالين تاسو due process إنا حقو لذا هدي وحلقو سوق عمل لغو قبصدو عمل whatever it is إنا ازدفاعدو إن أنسي حق دراء لغو جوجنين so خير هذا فربضان أي رجانا. السلام عليكم.